Asalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiisaysa Konami ama eFootball meel walba adduunweynaha ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub halkaad iga daawanaysaan waa Yaki Boy Gamer qofka idinla hadlayana waa saaxiibkiin waa walaalkiin Yaki Boy kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha maalinka Isniinta ah oo beri ah gameka lagu soo kordhin doono iyo waxyaabaha markaasi ka cusub eFootball 2025 ayaan kula wadaagi doonaa intaan muuqaalkan gudaha u sii gelin saaxiib waxaan ka codsanaa inaad muuqaalkan like sarto channelkan aad subscribe dhahdo gambaleelkan aad furato si muuqaal walba oo aan soo dhigo ku soo gaaro aad iyo aad u mahadsantahay intaas hadeed ii samaysay saaxiib yaal saa u jeedaan intaan oo subscribe ayaa haysanaa 5,000 wax yar inooga dhiman waa gaarnay adii haddaa inoo saarto inta kalena way imaan doonaan insha Allah please waxaan ka codsanaa inaad muuqaalkan like sarto channelkan aad subscribe dhahdo gambaleelkan aad furato si muuqaal walba oo aan soo dhigo uu ku soo gaaro aad iyo aad u mahadsantahay muuqaalkeeni ayaa gudaha u sii galaynaa ugu horeen waxaan ku hormaraynaa waxyaabaha eFootballka ka cusub ayaan idinla wadaagi doonaa saa wada ogtihiinba muuqaalka ka horeeyey waxaan idinku sheegay in uu imaan doono update versionkiisu yahay 4.3.0 updatekaas wuxuu dhici doonaa bisha labaad sanadka aan hadda ku jirno 2025 ayuu dhici doonaa updatekaas marka uu dhaco gameka maxaa laga bedeli doonaa gameka waxyaabo badan ayaa laga bedeli doonaa hadday noqoto ciyaaryaano hadday noqoto waxyaabo kale oo dheeri ah aan isla fiirino marka waxyaabaha markaasi gameka lagu soo kordhin doono updatekaas marka uu dhaco waxaa la keeni doonaa Cristiano Ronaldo oo big time ah 2018 asoo markaasi dhalinyaro ah ayaa la keeni doonaa Ronaldo oo big time ah ama big ah hore looma keenin eFootball lama keenin laakiinse asoo markaasi show time ah waa la keenay haddana waxaan sugaynaa asoo ibiga oo markaasi big time ah oo markaasi gaarayo 105 oo weliba asoo dhalinyaro ah ayaa sugaynaa sidoo kale waxaan sugaynaa ibigis loogu magac daray GOAT Spanish League Attackers waa wareey haddii aad maqli jirtay Ronaldo iyo Messi yaa GOAT ah hadda waxay shirkadda keeni doontaa ibigis loogu magac daray GOAT Spanish League Attackers kaas waxaa u horeeya Lionel Messi, Fernando Torres, Bale saddexdaas ayaa la keeni doonaa ayagoo markaasi ibigis ah sidoo kale waxaa la keeni doonaa GOAT European Club Attackers waa wareeyay waxaa la keeni doonaa Cristiano Ronaldo oo big time ah oo markaasi 2018 ah oo dhalinyaro ayaa la keeni doonaa sidoo kale Lionel Messi asagana asagoo oo 2007 ah oo dhalinyaro ah ayaa la keeni doonaa Romanji asagana waxaa la keeni doonaa asagoo 1979 oo dhalinyaro ah ayaa la keeni doonaa ciyaaryaanadan waxaa la keeni doonaa updateka marka uu dhaco updatekaas oo versionkiisu yahay 4.3.0 marka uu dhaco ayaa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa good cards eFootball 2025 waa wareey ciyaaryaanadan oo u horeeya John Cruyff iyo Casillas iyo ninka la yiraahdo Batistuta waa wareey ragga waxba lagama qaban karo saaxiib Biol iyo waxaa u jeedaa rag badan raggan ciyaaryaanadan waxay gaari doonaan 110 waa big time dhammaantoodaba waa ciyaaryaano oo markaasi dab iyo holac waay ciyaaryaanadaas ayaa la keeni doonaa marka uu dhaco updateka sidoo kale waxaa la keeni doonaa the GOAT best players haddii aad maqli jirtay ciyaaryahanka ugu fiican ama best playerska ugu fiican waa kee haddaba shirkaddu waxay keeni doontaa GOAT best players goodka ugu fiican ciyaaryaanada waa kee Lionel Messi ayaa la keeni doonaa oo 2007 oo dhalinyaro ah oo big time ah oo gaarayo 107 sidoo kale waxaa la keeni doonaa Cristiano Ronaldo oo 2012 ah oo asagana markaasi big time ah oo gaarayo 105 oo markaasi dhalinyaro ah sidoo kale waxaa la keeni doonaa Neymar GR oo asagana 2014 ah oo asagana markaasi dhalinyaro ah oo big time ah 103 oo gaaraya ayaa la keeni doonaa sidoo kale updatekaas marka uu dhaco shirkadda waxay sheegtay in kaamirooyinka garoonka update lagu sameyn doono ama la casriyeyn doono waxaana loo muujin doonaa sida Premier League oo kale qof walbana si fasiix ah ayaa markaasi loo arki doonaa sidoo kale ciyaaryaanada celebrationadooda ayaa la bedeli doonaa
qof walbana celebrationka hadda uu isticmaalo 2025 kan ayaa markaasi gameka lagu soo dari doonaa. Sidoo kale update-ka marka uu dhaco waxaa la keeni doonaa ibigis oo markaasi aad ku iibsan karto GB coins iyo GB ba waa ku iibsan kartaa. waa weli update-kan caadi ma wala GB wax lagu iibsanayo lajamadii hore oo eFootball-ka ciyaari jiray ay yaqaan ma fahanteen kuwa hadda nagu soo biiray ma aqaanaan. marka shirkadda waxay sheegtay in GB aad ku iibsan karto ibigis aad ku iibsan karta ayaa la keeni doonaa. intaas oo milyan oo GB ah ayaa haysataa wax faa'iido ah kuguma fadhiyaan, laakiin update-kaas marka uu dhaco oo ku farxi doontaa GB-gaaga ayaa players ibigis ah kusoo qaban doontaa. sidoo kale shirkaddu waxay soo kordhin doontaa alaabtii tigidhka oo playerska markaasi la kala iibsanayay ama la isku bedelanayay ayay keeni doontaa. 3 players oo double booster ah oo aadan markaasi rabin ayaa ku bedelanaysaa ciyaaryahanka aad doonaysid, hadduu noqdo big time ama booster wuxuu doona ha noqdo, marka waa ku bedelanaysaa. sidoo kale waxaa la keeni doonaa wax la yidhaahdo master league attackers ayaa la keeni doonaa oo eFootball-ka 2025 lagu soo kordhin doonaa. intaas markaa kasoo gudubno maxaa maalinka Isniinta ah gameka lagu soo kordhin doonaa. qof walba intaas ayuu isweydiinayaa. waayahay gameka Isniinta waxaa la keeni doonaa ibigiskan la magac baxay English League. ibigiskaas waxaa u horeeyay Stephen Gerrard iyo ninkan la yidhaahdo Shineskan ama Indhertan iyo Jack Wilshere ayaa la keeni doonaa. 3daas oo hadda halkan ugu jeedaan ayaan markaasi gameka la keeni doonaa maalinka Isniinta ah. 3dooda haddii aan ratingka isla fiirino Stephen Gerrard ayaan ku bilaabaynaa. Stephen Gerrard wuxuu ku imaan doonaa 86 ilaa 100 ayuu ku imaan doonaa, wuxuuna gaarayaa markaa booster a ugu darto 104 ilaa 105 ayuu gaarayaa. ninkan kaleeto indhayarta ah ayaan asigana isla fiirinaynaa ratingkiisa wuxuu ku bilaabanayaa 84 ilaa 98 ayuu ku imaanayaa, wuxuuna gaarayaa 102 ilaa 103 ayuu gaarayaa. sidoo kale ninkan la yidhaahdo Jack Wilshere oo u ciyaara Arsenal wuxuu ku imaan doonaa 84 ilaa 98 wuxuuna gaari doonaa markaa booster aasiisana 102 ilaa 103 ayuu gaari doonaa. 3dooda ratingkooda haddii aan isla fiirino Stephen Gerrard meesha ugu dheer uu gaarayo waa 105. ninkan la yidhaahdo Jack Wilshere asigana wuxuu gaarayaa 103. Shineskan ama Indhertan asigana wuxuu gaarayaa 103 ayuu gaarayaa. 3daas midka ugu fiican waa Stephen Gerrard. saad informationkiisa halka ugu jeedaan Stephen Gerrard ayaa ugu fiican ugu ratingka badan intaan oo boos ayuu ciyaaraa. informationkiisa waa kan haddii aad tradingka qaabkan u siisana 105 ayuu ku gaarayaa. 3daas markii la keeno ciyaaryahanadan aa u jeedo ayaa lala keeni doonaa oo u horeeya Szoboszlai. raggan kaleeto halka ugu jeedaan ayaa lala keeni doonaa maalinka Isniinta ah markii la keeno ciyaaryahanadan ibigiska ah. intaas ayaan jeclaystay inaan markaasi idinla wadaago. please waxaan ka codsanaa haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa aad nala soo gartay inaad muuqaalka like saarto, channelkana subscribe dhahdo, dambalaalkana aad furato si muuqaal walba oo soo dhigo uu kuu soo gaaro.